kulanti wanaagsan oo wacan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada waraysigan aadka u kooban oo aanu ku waraysanayno fanaanka caanka ee Maxamed BK oo garabkayga fadhiya waraysigan ayaa wuxuu daaran yahay hadalkii hameen hore uu Maxamed ka yiri meel uu xaflad ku dhiganayay oo dad fara badan oo Soomaaliya siyaabo kale oo fasireen qaarna ay aad uga caroodeen taasoo sababtay habaar iyo eedayn iyo colaad iyo dadkii Soomaaliyeed ee bulshada ahayd in la iska hor keeno waxaan weydiinayaa Maxamed marka hore maxaa ku kalifay waxa inuu yiraahdo fanka iyo siyaasadda in la isdhex geliyo ma khasaba iyo waxa u qorshaysan mustaqbalka dhow iyo kan fog baa jilaayada Maxamed soo dhaw TV Universal markaa Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay Allah ku casumo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay daawanayana aad baan u salaamayaa waxaan cod dheer tacsi ugu dirayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii naftooda ku waayay qarax ilaahay dhibtahay naga kor qaado tacsida horta waan dirayaa mar labaadka si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay dab munaafaqshaday muumin baa ku gubta anigu hadal wanaagsan oo tacsiye baan diray dabadna dad ba ka faa'iideysto xagga kale ka rogay waxaan taageerayaashayda iyo ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waan idin jeclahay idinkana waan ogahay inay jeceshiin waan ka raali gelinayaa sidii intii khaladka u fahantay waan ka raali gelinayaa muqdisho xaal baan siinayaa mar dambe iyo mar horeba Maxamed tacsi baad dartay dabcan waad ka daqnatay iminkana waad iga sheegay hameen horena waad sheegtay xalana waad iga sheegay dhibaatadii ka dhacday muqdisho iyo dadka Soomaalida ku baaba'ay dhibaatada soo gaartay inaad ka tacsiinaysaa ka xuntahay waa garanay fanka iyo siyaasadda inaad isku dhaxoodimiyaa doonaysaa mise waxaad doonaysaa inaad kala weecisid si aan taageerayaashaadu aysan isugu dhicinin bulshaduna isaga hor imaan Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Universal TV ba aad baan idinku mahadnaqayaa fanka iyo siyaasaddu biikahan waa iska kay murgeen laakiin waan kala saaraya anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay muraayada gariina sitay waan iska saaraya fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walbana waan tagayaa socdaalkayga Yurub markaan dhameeyo UK aan dhameeyo ilaa Muqdisho waan tagayaa labadayda showay ugu horeeyana waxaan ku caawinayaa dadkii ku waxyeeloobay Muqdisho qoysaskoodii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto anigu Soomaali waan jeclahay ma nacbi si xun wuxuu sheeg sixir wuu ka daran yahay qof baad keligii dadkaba adigu daacadaad u tahay inta u dadaalaysa daryeelkiisa iyo naftiyo sidoo u dulmari lahaa da'dii u dhaafin lahayd hawliga ugu daashay ficil inta isaguna dil iyo xarkiya dabin laabayo ku maqan dibid laabiyada marka fanaanku qof markuu caan noqdo dhibaato ma waayo YouTuber sida wax xaganayad helaysaa beel si journal wax si khaldan loo gelinayaad arkaysaa laakiin qof la hadalaya waa qofkii jira in badan baan habaariyo wax arkay social media ma isticmaalo laakiin uurka iiga duceeya oo habaarkii duco iigu bedela inta la sii noolaanayaaba waa mudee anigu mar walba fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel kasto Soomaaliyeed laba ballan waxaan ku qaaday in labadayda adinto ay uga caroodeen hadalkaagi siyaabo kala duwan baa loo fasiray bulshadii Soomaaliyeed oo aan is haysan ba dhibaato ay dhaxtaala fursad waxaan ku siinayaa sharciga dadka Soomaaliyeed ku daawanaya malaayiinta fanaanka u tahay ninka Soomaaliyeed u tahay inaad ka raali gelisid wixii dhacay soo dhaw Cabdi Xafid aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa adiga iyo Universal Adnaan oo kabarday naga duubayo nin qaali ah Barasaab iyo Cabdi Waasac oo niman qaali ah oo showgii muhiimka ugu horeeyay rag lahaa oo in la fadhiya dadka Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn ciidamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuurade markii hore ciidamada waa igu tuurteene igu tuura anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado وانا idinka raali gelinaya I love Muqdisho
xalna waan siinaya intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waraysigan aadka u kooban ummadda soomaaliyeed qof aan khaldamin ma jiro maxamed waa maqlaysaan raalli kama ihi buu yidhi wixii dhacay waa ka xumahay ilaahay baan khaldaminin shicibkaas soomaaliyeed ee walaalaha isdugsanaya colaad iyo dhibaato yaan la dhex dhigin yaana laga faa'iidaysanna xumaan loo fasirin qof aan khaldaminin adduunka ma jiro walaalka hadduu raalli ku yidhaahdo madaxaa la saartaa aad baa u mahadsantihiin maxamed aad baad noo mahadsantahay thank you cabdi xafid